soo dhawaada mar kale daawadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkii qubanaha oo toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida youtube-ka facebooka twitterka iyo weliba telegramka warbixino qoraal ah faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirnow hbn oo ka dhigo wehelkaaga wararka imikana Gaza iyadoo caawa ay tahay habeenkii 13aad ee tan iyo markii Israa'iil dib ay u bilowday dagaalkeeda lagu sifeeyay xasuuqa aan kala sooc lahayn waxa la sheegayaa ilaa iyo maanta dad ka badan 20 qof in lagu dilay marayka Gaza haddaba iyadoo maanta ay dowladda muslimka u ahayd inta badan maalintii ugu dambeysay ee bisha Ramadaan ayaa waxaa soo baxaya war ka soo yeeray ururka Hamas oo ku aadan inay aqbaleen hindisa cusub oo rasaas joojina haddaba goor dhaweyto waxaa qodbad telefishinka ka jeediyey qaliil al-haya oo ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee ururka Hamas waxaana uu faahfaahin ka bixiyey hindisahan cusub iyo weliba qaabka uu noqonayo waxa uu sheegay in markaasi ay aqbaleen soo jeedintan oo wadamada Masar iyo Qatar wada hadallo ay ku yeesheen magaalada Doha wakiillo ka socda ay isku afgarteen heshiiska la ambaqaado laakiin wuxuu meesha ka saaray oo una ku tiro inay tahay xariiq cas in la yiraahdo xoogaga iska caabinta hubkooda ama hadhigan ama gorgorta in la geliyo alhaya ayaa qodbadiisa waxa kale oo ku sheegay in dhaqaaqiyo wada jir ah oo socda ay ka mid tahay sidii dagaalkan loo joojin lahaa loo qaadi lahaa go'doominta la sii daayay maxaabiista Falastiiniyiinta waxaana uu ku eediyay Israa'iil inay ka gaabisay marmarsiina ka dhigatay inay sii wado dagaalka waxa kale oo uu sheegay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu isagu mas'uul ka yahay dibadhaca ku aadan in ciidankiisa uu kala baxo marayka Gaza sababtuna ay tahay buu yiri si u badbaadiyo dawladdiisa isagoo ku tilmaamay iska caabintu inay awood u leedahay markaa in iska caabisay Israa'iil qaliil al-haya waxa uu sheegay in Hamas ay u hogaansatay dhammaan qodobadii lagu heshiiyey laakiin ballanqaadka ma aysan oofin buu yiri Israa'iil gaar ahaan inay ciidankeeda kala baxdo aaga Salaxdiin ama Philadelphia waxaan uu sheegay hadda inay dagaalka dib u bilowday wuxuu xusay in wacyiga dadka Falastiiniyiinta uu yahay mid inay iska caabiyaan guumaysiga khiyaanadiisa dulmigiisa iyo argagixisinimadiisa isagoo ku celiyay Hamas inay ku dhagan tahay wixii lagu heshiiyey in ay markaasi aqbasho alhaya waxa kale oo cadeeyay in Hamas si togan ay uga jawaabtay dhammaan soo jeedintii gaar ahaan arrimaha wada xaajoodka oo ay u soo bandhigeen Masar iyo Qatar waxaana uu rajo ka muujiyay in Israa'iil aysan carqaladeyn doonin dadaaladan imika la wado wuxuu intaas ku daray in Hamas ay la xiriirtay dalal ay kamid yihiin Algeria Shiinaha iyo Ruushka si aragtida ay qabaan ugu gudbiyaan taasi oo ku salaysan dhabihii uu jeexay Ismaaciil Haniya toddobaadkii labaad dagaalkan markuu qarxay wuxuuna yiri waa gardarrada in la joojiyaa mideynta shacabka Falastiiniyiinta xaqiijinta dawlad ay leeyihiin oo madax banaan caasimaduna ay noqoto Qudus iyo xaq qaxootiga dib ugu soo laabtaan dalkooda waxa kale oo uu sheegay in la saxiixay heshiisyo ay ku mideysay dhammaan xoogaga qaran ee iska caabinta Falastiiniyiinta isla markaasna wuxuu sheegay in Hamas ay diyaar u tahay in maamulka marayka Gaza oo rayid ah ay ku wareejiso laakiin wuxuu yiri taas macnaheedu ma ahan inaan hubka dhigayno iska caabinta hubkeedu waa qadkii casaabu yiri suurtagalna ma aha buu yiri inaan dhignaa hubkan wuxuu ka mid yahay buu yiri xoreynta dadka Falastiiniyiinta waxaynu ugu tala galnay waxa kale oo intaa ku daray in ay markaasi u gudbiyaan Masar magacyada dadka isleeyihiin si nidaamsan oo rayid ah inay u maamulaan marayka Gaza isagoo tilmaamay Hamas inaysan xitaa doonayn inay sii maamusho marayka Gaza waxa kale oo tilmaamay in shacabka Falastiiniyiintu ay dhiig iyo naf ay u horeen sidii markaasi xorriyad ay u heli lahaayeen iyo dawlad madax banaan iyo masjidka al-Aqsa oo madax banaan waxaana markaasi uu sheegay in taasi ay tahay go'aanka ugu dambeeya wuxuu kaloo fariin u diray ummadaha carabta iyo islaamka isagoo yiri ciida sanadkan waxay ku soo beegmaysaa sanad guuradii 49aad ee maalinta dhulka gaar ahaan iyadoo dhulka Falastiiniinta la qabsaday isla markaasna wuxuu yiri waa in aad kaliya aynan ka fakirin ciida laakiin aad ka fakartaan dadka Falastiiniyiinta maanta marxaladda ay ku sugan yihiin wuxuuna sheegay in hadalkiisa ku soo gabagabeynayo ummadaha Carbeed iyo Islaamka waxa tiin rajada iyo garabka shacabka Falastiin awoodiin ayaa bedeli karta xaaladan waxaana wadajir u abuuri kartaan mustaqbal lagu baabi'in karo haysashada dhulkeena iyo gobolka oo idin
waaye haddaba dhanka Israa'iil xafiiska Netanyahu ayaa waxaa la sheegayaa in uu isla gudbiyey hindise ama jawaab liddi ku ah tan Xamaas ay gudbisay taasi oo la xiriirta aqbalaadda Xamaas ay aqbashay wararka qaarkood waxay leeyihiin Xamaas waxay soo jeedisay 5 maxaabiista kamid ah oo mid kamid uu yahay Mareykan in la sii daayo iyo dhowr qof meydadkooda in la wareejiyo konton maalmoodna xabajoojin lagu dhawaaqo laakiin ilaa hadda lama cadeynin Xamaasna maysan sheegin waxa ay soo jeedisay iyo waxa ay aqbashay wararkan oo warar soo taraya waynu arki doonaa wixii ku soo koray laakiin Xamaas waxay leedahay hindisihiina loo soo gudbiyey jawaabtii aan bixinay waxaan aqbalnay wixii la soo jeediyey Netanyahuna waxa la sheegay asna inuu gudbiyo hindise kale wixii ku soo kordha warkaas waynu arki doonaa xagga Yemen aynu eegno mas'uul sare oo ka tirsan dowladda waddanka Iran ayaa goor dhaweyto wuxuu la hadlay warbaahinta kadib kulan oo la qaatay ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan waddanka Yemen oo lagu magacaabo Hannes Goldenberg haddaba mas'uulkan oo lagu magacaabo Majid Taqti Ravanje oo ka mid ah mas'uuliyiinta waddankaasi Iran ayaa waxa uu sheegay in ay si adag u cambaareynayaan ficilada Mareykanka uu ku duqeynayo waddanka Yemen taas oo sheegay inay sababtay dad badan oo rayid ah in ay dhintaan kuwa badan ay ku dhaawacmaan isla markaasna la burburiyo kaabayaashii rayidka ahaa ee dalkaasi Yemen wuxuu yiri tilaabo military xal ma noqon doonto yiri wax walbana waxa ugu muhiimsan buu yiri in la qaato dhaba wada xaajood iyo xabajoojina Iran oo si rasmi u taageerta Xuutiyiinta waxay sheegtay in weeraradan Mareykanku uu ku hayo waddanka Yemen ay yihiin kuwa markaasi jawaab u ah in Israa'iil la difaacayo halkii la joojin lahaa gardarrada Israa'iil ee ka wado marayka Gaza dhinaca kale waxa isna goor dhaweyto hadlay mas'uul sare oo ka tirsan ururka lagu magacaabo Xuutiyiinta ee waddankaasi Yemen waxaana mas'uulkan uu daboolka ka qaaday in weerarada Xuutiyiinta lagu hayo inaysan waxba iska bedeli doonin go'aankooda Mahdi al-Mashat oo ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee ururka Xuutiyiinta ayaa sheegay in inkastoo Mareykanku duqeymo culus oo ku hayo dalka Yemen haddana wuxuu yiri awoodeena military waxba umaysan dhimin ilaa iyo hadda wuxuuna ballan qaaday inay sii wadi doonaan weerarada wuxuuna sheegay in ay markaasi duqeymaha Mareykanka dileen oo kaliya haween iyo caruur isla markaasna la beegsaday goobo dad reed ay degan yihiin waxaana uu ku celiyay in ay sii wadi doonaan weerarada ay Israa'iil ku qaadayaan iyo beegsiga maraakiibta gooshaysa badda cas ilaa iyo inta la joojinayo weerarada iyo go'doominta lagu hayo marayka Gaza maamulka Trump ayaa horey ugu dhawaaqay in ay xoojiyeen weerarada ay ku hayaan Xuutiyiinta laakiin hadalkan ka soo baxay Mahdi al-Mashad ayaa waxa la sheegayaa in uu u muuqanayo kooxdu in aysan weli ka tanaasulin go'aankeeda isla markaasna ay u muuqanayso inay ku sii dhigan yihiin mowqifkooda ah inay sii wadaan weerarada waaye qodobkaasna halkaas aynu kaga gudubno sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka ayaynu soo gaarnay aalab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen dalkan UK ayaa waxaa ka taagan sheeko la yaab leh 170 guri oo asalkooda iska leeyihiin dad Afrikaan ah ayaa dowladda Britain waxay raadinaysaa guryahan dadkii lahaa sida laga yeeli lahaa waxay leeyahay dadkan waa dad dhintay 120 guri iska lahaa macnaha UK ba guriga ka gateen laakiin ma aysan qorin cid lagala xaajoodo haddii dhibaato ay ku timaado ehel umaysan qorin wakiil umaysan samayn gurihii baa la iska iibsaday dadkii waa dhinteen 170 guri ayaa waxa sheegtay laayahay dowladda UK baa gacanta ku haysa gurihii warkan waxaynu ka soo xiganay wakaaladda wararka la yiraahdo DW Africa Jarmalka laga leeyahay qaybteeda Afrika la hadasho sababta waxa la arrintan ay u dhacday dadkan waxa la yiri ilaa iyo hadda dad ehelkooda lama hayo laakiin baraha bulshada ayaa dad baa arrinta ka falceliyeen waxaan leeyahay marka tan waxay u baahan tahay inay u noqoto digniin dadka qurba joogta ee Afrikaanka ah oo ah haddaad guri iibsanaysaan ugu yaraan waxaad sheegtaan qof dhaxalkaaga iska leh ama ehelkaaga oo hantidaas haddii dhibaato kugu timaado sheegta dadka qaarkood waxay leeyihiin badankoodu waa dad ka soo jeeda Nigeria 170 kaas guri oo cid sheegatana la yahay maxay ku rabtaa adiga ra'yigaaga qaybta hoose nagu reeb fariimaha
inta ayaan kusoo gabagabaynayaa caawa barnaamijkii waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbinno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda kusoo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka waa inoo barnaamijka xiga insha allah inta ka horeysa ciid wanaagsan nabadgelyo